arrimahan horta markan ka hadlo arrintan dadkan soo galootiga hawl baa laga qabtaa hawshii laga qabanayna waxay noqotay in la qaado halkeed la geeyo dabadna ay soo noqdaan arrintaas waxay u baahan tahay in la bedelo jadwalkaa marka hore lagu go'aansaday waxay u baahan tahay in la bedelo qofkaad shalay geysa wajaale ee soo noqday ee berri geysa ee soo noqday dee maalinta dambe waa inuu xabsi mutaa waa inuu mutaa maxaa yeelay dee adeer dalkaagii joog baa la yidhi waa la geeyey wuu maqli waayey waa la geeyey wuu maqli waayey dee markaa meeshuu kugu haystaaye dee in tallaabo laga qaado oo la xidho ayuu u baahan yahay dee taa waxaan leeyahay arrintaa hore ha la bedelo haddii sharci lagu xukumo loo baahan yahayna dee hay-adaha ku shaqada leh ha soo gudbiyaan oo ha u soo gudbiyaan golayaasha kaa intaasaan kaga baxaya ka kale beryahan oo dhan waxaad arkaysaa kii la doonayay waxaa la nin baa masaajid laga soo qayliyo markaasuu yidhi haddii masaajidka laga soo qayliyo xaggee la qabanaya war meel suldaankii ka hadlayo qabyaalad ku baaqayo ama dagaal ku baaqayo meel caaqilkii ka hadlayo dagaal ku baaqayo ama ku baaqayo wax ku baaqayo ma suurto gelayso in nabaddu taagnaato ama ay jirto waa inaynu run isu sheegno kaasaan xumeeyey halkay u tahayna hadday xun tahayna kaasaa xumeeyey dee dadka yaan la wada saarine kaa ku baaqay ee dagaalka ku baaqay maxay hayto ayaa xumeeyadii waa in qofka waa in tallaabo laga qaadaa wixiisana waa in meel loo dhigaado qof dee maxay hayto wantidhaho ummadda kala dilay inuu noqdo waa in lagu caddeeyaa kaana intaasaan anigu odhan lahaado taa ceerigaabo dee arrintii waa kii madaxweynuhu gogasha nabadeed dhigay waa tii la isugu tegey wuxuuna haddii hawl la qabto hawshu waa inay dhammaystirantaa hadday dhammaystirmi weydo ama wax ka dhiman yihiin haddii wax ka dhinaayeenna dee wixii ka dhiman waa in loogu kordhiyaa ceeb la'aan haddii aanay waxba ka dhinayna dee wixii markii hore la isla gartay waa in la fuliyaa waa in la fuliyaado dee si fiican oo dhib leh xaajada loo galaa beriya tan iminka war bahashan la yidhaahdo meesha la yidhahdo shidan labaa waxaan u malaynayaa 15 sannadood shidan un baynu dhinahnaa shidan goor bay dhammaanaysa yaa baktiya dee u dirade war bal horta shidan goor bay dhammaanaysaa goor bay baktiyaysaa shidan waxa weeye shidan dee cidda aan inta ka harsan laga sugayo dee aynuu sheegno nahno aday kugu xidhan tahay shidan hadday innaga inagu xidhan tahayna dee aan dhammayno hadday cid kale hukuumad ku xidhan tahayna hadda aan idhaahno dhammeeya hadday qabaayil ku xidhan tahayna aan idhaahno dhammeeya
dee sidan magaceeda ayaynaan wadinuune sidan magaceeda aynu meel iska ku tiirinno taana intaasaan ka leeyahay waxaanaan kaloo leeyahay war xaaladaha jira ama yimaada ama muuqda in laga wada tashadaa fiican oo guurtida xukuumadda ciddii ku shaqo leh talo lagu midaysan yahay oo la isla og yahay maan rag baa la yidhi waa mudacyo afkii waxaa laga yaabaa inay dowladdu dadaalayso oo wax qabanayso innagana waxaa laga yaabaa inay si kale inoogu muuqato aynu inagoo ka tashannay oo taladeedii meel dhignay oo aynu u midaysannahay aan ku dhaqaaqno oo yaynan hadhow dabada iska xaman